waxaan isleeyahay qaad markaynu dhahno Soomaali qofka ahi malaa waa well experienced yani waa qof si fiican u yaqaana qaad wuxuu galo iyo wuxuu gudaba taariikhiyan dib ugu noqon maayo laakiin qaadka waagii hore reer galbeedku juhdi badan may gelinin waayo dhulkoodana laguma cuni jirin mana aqoonin nimankii ugu horeeyay soo arka waxay ahayn shantii nin ee Scandinavian-ka laga diray ee magacaba uu bixiyay ee Yemen tagay iyagana markii dambe kana caalaysayba way madheen marka umuuman la eego marka qaadka daraasaadkiisu waxay inta badan bateen toddobaatanaadka wixii ka dambeeyay baxthi badan baa lagu sameeyay natiijooyin tiro badanina way ka soo baxeen daraasaad jaamacaad tiro badan kuwa Mareykanka kuwa Jarmalka kuwa Switzerland qaar Ingiriiska dad badan baa sameeyay buxuus Sacuudiga xataa jaamacaddii Soomaaliyeed ee Muqdisho ee baxthi bay ka sameeyeen 83 marka la eego buxuustaasi tirada badan lee laga qoray runtii dhammaantood waa ku argagax gelinayaan wax wanaag lagu sheegayaa ma jiro tala United Nations WHO 1973 baan filayaa markay baaritaanadoodii koowaad sameynayeen 40 maaday sheegeen oo ku jira laakiin waaga may aqoonin maadada tan ugu khatarsan ee cathinone la yiraahdo waayo cathinonku maadaday marka iyagu moodayeen inay ugu khatarsantahay ku jirta waa cathinku waa light drug waa stimulant waa drugska saddex qaybood bay u qaybiyaan qayb kicisa jirka iyo maskaxda iyo qofka bini'aadamka fikradiisa iyo qayb nabto oo dajisa oo hurdaysa iyo qayb hallucination khayaalun iyo inuu wax maqlo iyo riyo ku itixaanta qaadku isagu wuxuu ku jiraa waa stimulant cocaine la kooxiyay waa qaybaha kiciya qofka bini'aadamka qaadka marka ugu horeysay wixii ay ka heleen maadada cathinka oo ay ku tilmaamayaan inay psychoactive drug tahay oo ay la drug fudud tahay ayay moodayeen inay wax walba tahay inkastoo iyada lafteedu cathin anti-doping agency-ga mamnuucaadkiisu ku jira qoladan orodada iyo Olympiga iyo kuwa wax ciyaariya maadaadkan laga baadho ee qofka laga inuu dragaysan yahay in kale kuwaas ay ka tirsan tahay waxa uu shartiya inuu 5 microgram per milliliter inuu ka yar yahay hadduu 5 microgram soo gaadho waa drug abuse waa kuwan orodada laga reebay iyo waxaan oo dhan bay ku jirtaa marka asliyan iyaba waa maado ah maadaadka dunida loo rumaysan yahay inay drugska ka mid tahay laakiin way ka fududahay ta kale marka loo eego cathinone-ka maadada la yiraahdo mawaada ugu khatarsan ku jirta marka hore lama garanin laakiin waa lagu qanci kari waayay inay cathin qura waxa ku jira ay tahay haddana wixii kale ku jiray waa xoog loo sheegi kari waayay ama la garan kari waayay waayo waa lagu qanci kari waayo cathinku waxa uu ugu badan yahay inta la tuuro marka haddii waxa loo cunayaa ay tan tahay bay leeyihiin maxaa loo tuuraya ma iyada aad loo cuno garaabadan weyn iyo u shandheer oo baalka samaysan iyo kuwaasay ku badantay intan yara curubta la goosto kuma badna su'aasha isweydiinta le waxay noqotay marka war haddii bahalkan cathinu yahay waxa loo cunayaa maxaa intii la tuurayayna ku badiyay intan la cunayana ku yareeyay waa inay jirtaa wax kale oo intan yari ay wadato gaara taas waxay keentay in baxtiga dib loogu noqdo 1975 ayay marka isolate gareeyeen oo soo saareen maada la yiraahdo cathinone inay ku jirto 1978 na molecular structure-keeda ayaa la soo bandhigay oo waxay reciprocal u tahay waa amphetamine natural amphetamine bay ku tilmaamaan waa amphetamine muraayada chemicals ay u samaysantaa hadii muraayad loo dhigo qaabkay u soo baxayso ayuun bay u soo baxaysaa bay yiraahdaan cathinone waxyaabaha ay baadhista ugu adkaatay waxa ka mid ah maadaama westernku inta badan oo dhulka wax lagu baadhayo qaadkuna waqti badan la soo saadayo waa maada aan joogisteedu badnayn 48 saac kadib كاثين ينرد فدرين بيسو بدشاه
waa 48 saac marka geedka laga soo jaro oo qura ayay sideedii u joogi kartaa wixii ka dambeeya waxay dhahdaan nimanka qaadka warramaa qaadka waxa la saaro dhami way dheereeyaan sababta ma garanaysaan di dameer la saaro di awr la saaro di gaadhe la saaro wax kastoo la saaro waa la eriyayaan waxa weeyaan maadadan baa la ilaalinayaa inta aanay isbedelin in dadka hore loo gaarsiiyo maadada tan inta aan isbedelku ku dhicin in dadkii cunaya ee hore u gaadho waa la soo duuduubaa oo berigii horena caleen muusiya waxbaa lagu soo duuduubi jiray amaba si moisjarkeeda iyo waxeeda loo ilaaliyo waayo maadadani hadday iftiinka la kulanto ama oxygenka ay la kulanto markiiba way isbeddeshaa qolada qaadwalaha waxaa ka maqashaan kala furfuro ma jecla inay cunaan waa mid rabdada nasiib ay dhahay mid hadda duuduuban waayo kan duuduuban kaatinoontiisiiba ayaa u ilaashan laakiin haddii la furfuro oo la baadhbaadho kolba dabadda loo soo bandhigo oo uu iftiinka la kulmo ama oxygen badan la kulmo chemical structurekiisii baa isbedelaya marka cathine bay noqonaysaa ama neurophedrine bay isu bedelaysaa oo cathinone bay ka baxaysaa marka waa unstable bay dhahdaan maaddo ah maadaama ay maaddo unstable tahay waa in qaabka loo kaydinayo qaabka loo dedejinayo qaabka qofka loo gaadhsiinayo 48 saac hadduu dhaafo daragii loo baahnaa maaha waa inuu wakhti fudud lagu geeyaa cumuuman 40 maaddo wax ku dhadhow baa ku jira tanise waa maadada ay drag ahaan u leeyihiin waa u khatarsan tahay waayo dunida badhna drugska herarkiga ay kala leeyihiin qaybta saddexaad baa ku jirta maraykankana qaybta afraad baa ku daraa laakiin mawaad kalena waa ku jiraan maalan tanic acid baa ku jirta tanic acidku waxa weeyaan waa acid dhan lagu magdiyo haragga kan qaadka cuna waxaan ilku uga daataan ama dibnuhu caddaadaan ama waa nin acid haragga lagu magdiyo ee qudhunka lagaga gooyo dee afka ku walaaqaya that's why uu dhacayso waxa kani waa sababaha ku keena inta badan ulcerku ku dhaco waxyaabo badan oo kale ku jira laakiin maadada tani cathinonka la yidhaahdaa chemically waxay dhahaan laba shay bay sababtaa wax degdega iyo wax long term waxyaabaha degdega ay keento waxaa ka mid ah qofku markuu bahalkan cuno central nerve systemkiisa ayay been u sheegtaa dabeetana qanjirhkan kelida kor saaran baa soo daaya dheecaamo kadibna maskaxdu waxay bilowdaa firkanax waxay ku tilmaamaan firkanaxaasi wuxuu yahay qofku markuu baadadatani jidhkiisa gashay koowaad waxaa bilaabmaya firkanaxu waa qofku markuu dagaal maalan markaad u diyaargaroobayso kale qofku markuu dagaalamayo jidhkiisa maxaa isbedela waxa isbedela wadna garaacistiisa badata si aad enerjigu xoog u heli karto waxa isbedela bay yidhaahdeen yacni waxyaabo badan oo jidhka ka mid ah ayaa isbedelu ku dhacaa marka maadadatani markay jidhka gasho xididadu way yaraadaan waayo waxaa loogu talagalay qofku hadduu dagaal galo xididku hadduu ballaadhan yahay dhiig badan baa kaa qubanaya ilahay baa kuugu talagalay marka aad dagaalamayso in xididkaagu yaraado si aan dhiig badani kaaga quban mawaadda sameeya maxaa la yidhaahdaa bahashan la yidhaha xinjiraha way diyaargaroobaan si haddii nabar kugu dhaco qofka qaadka cunaya instantka koowaad wuxuu la mid noqdaa sidii qof dagaal galayoo kaleu jidhkiisu u react garaya marka waxa isbedela waxyaabo tiro badan leh effectska ay sheegaan markaa waxaa ka mid ah garaacista wadnahoo badata neefsashadoo degdeg noqota temperatureka jidhkaoo kor u kaca blood pressurekaagoo kor u kaca qofka euphoria taga ama marqaanka waxaanay ku sheegaan waxa bilaabma bay dhaaheen euphoriada marka uu gaadho marka hore maadada tani nusu saaca hore waxay ku sii jirtaa weli inuu jidhku nuugis ku sameeyo laakiin marka uu nuugistaa jidhku uu ku sameeyo uu jidhka ay gasho waxaa bilaabma wakhtiga hadalbadnida qolada qaadka cuntaa marka hore baalka la googoosta cabaan marka la joogaa sheekada isku duba dhacdaa markaasaa la wada hadlaa waxay dhahdaan maadadani waxay sababtaa marka koowaad in uu qofku talkative isu bedelo oo aad u hadal bato waxay kaloo samaysaa bay dhahdeen manic behavior ama hyperactive buu noqdaa
dhaqan waalimeedka u eg markay marqaamaan waad aragtay mooyiinaad u fiirsatay midi garaabadan agtiisa taallu googooya qaar qor yar bay jeexjeexaan qaar afku dhaqdhaqaajiya yani waa manic behavior bay yidhaahdaan waa nooc waalida ka mid ah waxa uu bilaabmaya bay leeyihin qofku inuu jidhkiisu controlku ka lumo qaybaha qaar ka mid ah ama involuntarily waxyaabo badan oo aan ahayn wuxuu normally u samayn jiray inuu bilaabo inuu qabto oo qof hyperactive uu noqdo energetic uu u muuqdo waxyaabahay samaysa waxaa ka mid ah bay yidhaahdeen xiidmaha iyo qaybaha kan way seexisaa muscle contractionka release baa ku dhaca taasi waxay sababtaa constipation kan tirada badan leh dadka qaadka laasima inta badan calool istaag baa ku dhaca baasiir baa ku dhaca yani xanuunada noocaasi oo dhan ayay la kulmaan waxaa ku dhacaba la yidhahdo qofku wakhtiga kan hadduu sii badsado ama bay yidhaahdeen markuu isku dayo inuu iska yaro daayo wakhti yarka uu ka baxo hallucination baa ku dhaca bay yidhaahdeena ah inuu waxyaabo sasawiro waa waxaanay soomaalidu dubaabka tidhaahdo soomaalidan maqalqolada qaysa markay yidhahdaan qaad baan waayo dubaab baa cunay iyo kan baa dhacay waa hallucinationiskan bay yidhaahdaan hallucination ayaa ku dhaca waxyaabaha uu sababo waxaa ka mida bay yidhaahdaan hadduu qofku marka uu iska daayo trimorba ku dhacbay isagoo iska fadhiyin baa kolba jidhka meelay dhaqaaqda uu moodaa in la taabanayo ama muruq gariira ama jidhku dhaqdhaqaaq badan uu sameeya nightmare baa ku dhaca inuu habeenadii riyooyin badan uu sameeyo waxay tilmaamaan qofku inuu marqaanka gaadhaa wuxuu u baahan yahay bay dhaheen jidhkiisa kiilo kastoo ka midi inuu 0.8 milligram of cathinone uu qaato maalan ninka 70 culayskiisu yahay 56 milligram cathinone buu u baahan yahay siduu waxaanaynu sheegaynoo dhan uu u gaari karo ama uu samayn karo waxaan isku dayayaa wakhtigoo yar inaan wax badan ka tallaabo oo soo koobo waxyaabaha ay leeyihin uu sababaa waxaa ka mid ah sonkorta jidhka baallada ku jira tribinoidska ku jira daraaddeed sonkorta jidhku way badataa dadka macaanka qaba khatar buu iyey waayo sonkorta jidhkooda ayuu tiro badiya soomaalidu laakiin waxay moodaa qadhaadhku inuu wax ka taro macaanka inuu wax ka taraa bay moodayaan waxyaabaha uu keeno waxaa ka mida bay yidhaahdaan xanuunada psychologicalka ee qofka ku dhaca oo qalaqa kan ama idiraabka nafsiga ama waxaan iminka soomaalidu ay buufiska u bixisay qofkoo codad maqla ama xataa dadka qaarkood paranoid wuu dhaafaa psychophrenia buu la gaadha oo ah inuu qofku codad maqlo ama uu shakiyo uu yidhaahdo waa lay xamanayey qof laba qofoo meel iska fadhiya yidhaha maxay imaagayseen ama maxay xamanayseen ama maxay igu hadal hayseen waxaa ku dhaca bay yidhahdeen qofka isagoo qura maahe weliba wakhtigan dambe maadaama uu batay conceptionkiisii cunistiisii markay badatay qaad qura maaha bay leeyihiin sidiisuu toxic ku yahay kuwan beera waxyaabahan lagaga ilaalinaya la caleenta iyadaa la iibinayaayo inay fiicnaato la rabaa dhalaasho marka pesticideska iyo insecticideska iyo kuwan lagu daro caalamka laga keeno DDT iyo qaar la mida baa lagu daraa ilaa xad laga helo dadka cuna qaar ka mid ah DDT caadiya dhiigooda dhakhaatiirtu intay baadho DDT caadiya laga helo maaha inuu qaadku materialkan DDT-ga u leeyahay ma laha isagu laakiin waxa uu la socday waa dawooyinkii lagu buufiyey wixii lagu ilaalinayay inuu si fiican u baxo ama caleentu aanay daldalool yeelanin ama ay quruxsanaato waxaynu naqaanaa qaadku wuxuu keenaa balwado badan oo kaluu bilaabaa inta badan qofku markuu qaadka cuno smokingkuna wuu raacaa inuu sigaarka cabo dad badanoo galbeedka jooga qaadka markay cunaan khamri ka daba cabbaan waayo khamradu waxay ka mid tahay drugska kuwa caqliga dejiya ama daboola qaadkuna wuu kiciyaa marka waan ku jebinayaadaan ay yidhahdaan waa runtood qaadku kor buu u qaadayaa markuu dawakhana khamri markuu cabbana dib buu u celinaya haddana waa laba waaliyadoo midba dhinacu socoto waa ka mid dee waxyaabahan kale drug relatedka la ah meelahan lagu cunaya waxa kan xanuunada infectionka lagu kala qaadaa markay maalmaha ka mid ah waddan yurub ka mid ah bay godadka yara lagu qayalo mid ka mid ay qabteen waxaan rajaynayaa haddaanan hilmaamin
12 qof bay qabteen oo 8 bay TB ka heleen yani maca way wateen raajitadoodii dadkan waa loogu taag waayay dhakhtar kaale iyo waxa marka qolada hygiene guuraysa meesha intay dul timi ayaa la qabqabtay dabeetana toos baa loo saaray sawirradii wixii la rabay laga qaado 12 qof baa 8 laga helay TB ka way isagu TB ma keenin laakiin circumstances-kan ku xeeran dhulkan lagu qayliyo meesha la fadhiyo waxa kan ayaa keena problems kan tirada badan leh waxa isweydiinayaan inta aan drugga kanaad xoog u isticmaashay aan waalida gaarsiinin financial crisis-ka uu sameeyo dhaqaale burburka uu sameeyo isaga qayb weyn ka ah bay yiraahdaan waalida ku timaada iyo buufiska dadka kan ku dhaca waxa ka yimaada bay yiraahdeen qofka oo 8 saacadood waqtigiisa kamid ay ka khasaarto oo de meelun fadhiyo sheekaynaya waxay yiraahdaan waxa kamid ah marka uu cuno ee waqtiga uu cunistiisa ku jiro waa hyperactive marka hore laakiin marka dambe wuxuu bilaabaa inuu dumo marka uu soo dumayo dad meelaha qaadka ku cunaan aragto marka hore ee bahalka la bilaabo wala wada farfaraxsan yahay markuu si fiican jirka u galana sheekada iyo hadalka badata marka dambana waa la kala wada aamusaa ninba meel buu gaar isaga jeestaa uu aamusaa waa markuu bilaabma bay leeyiin euphoria inay degto marka drowsiness-ku waa markuu ku bilaabmo qof waliba inuu gaar u aamuso hadhow markuu ka luqluqdo inuu meelaha finfindhicisho ama keligii meel istaago waxyaabaha keena waxa ka mid ah bay leeyihiin hadhow inuu hurdada seexan kari waayo hurdo yari baa ka mid ah waxyaabaha la socota markuu hurdada seexan kari waayo waxay yidhaahdaan nin Soomaaliyeed baan arkay wuxuu igu yidhi 7 shaqaa la iga eriyay buu yidhi 7daba qaad baa la iga eriyay يعني 7 shaqaan ka tagay buu yiri 7daba waxa la igaga eriyay anigoo intaan habeenkii qaad cunay subaxii ama daalay ama hore u kici kari waayay ama waqti dambe tagay sabab qaad baa la igaga eriyay waan iska daayay buu yiri shaqaan bilaabay 5 sanadood isku xigtaan xataa maalin xanuunsan buu yiri raasay gu yiraahdeen buu yiri war adigu dadku maalin xanuuna uu qaatay ma iska xanuunsatidna yani gaaladu waxay dhahan bari waan xanuunsan doonaa bay dhahan 3 days year baa la ogoliyay marka wuxuu tilmaamayay in noloshiisa inta uu difference-ka u dhaxeeya inta uu leeyahay markaan soo duuduubo runtii waqtiga daraadeed waxa laga qoray aad bay u tiro badan yihiin laakiin qaybtii psychological-ka markaynu tilmaamno waxay dhahdaan stage 1ka 20 ilaa 25 daqiiqadood ama 15 daqiiqadood ilaa 20 daqiiqadood ugu horeeya wuxuu galaabay dhahdaan xaalatu tanbiih ama tanabbuh xaaladda soo jeedkii hore sidii nin koofi cabay oo kale firfircoonida hore u dareema 90 minute markay gaadho bay yiraahdaan waa xaalatul kayf waa euphoria markuu gaadho marqaanka rasmiga markuu gaadho hadalku tiro bata weeyaan xaaladda saddexaad bay yiraahdaan oo marka uu ka kacay waa marka alqalaq nafsi uu bilaabmo en maqaayis tiro badan ay ku sameeyeen ama qiimeyn tiro badan iyo baaritaano tiro badan ay ku sameeyeen waxay cadeynayaan kow inuu khalkhal galiyo cawaatifta qofka bini'aadamka oo dhan oo ka mid yahay faraxa murugada ay ka mid tahay nacaybka jacaylka ay ka mid tahay dhaqdhaqaaqa ay ka mid tahay dhiiranida baqaha waxaasoo dhan khalal buu ku sameeyaa bay leeyihiin oo qofku normalitygiisi ma noqdo marka aan soo duuduubo waxaan leenahay waagii hore ee qaadka aqoonta loo hayay scientifically ay yarayd muran badan baa jiray bayna alculamaa kuwa sharciya iyo kuwa kaleba muranku wuu badnaa waayo qadaayaad scientifica oo yaalay ma jirin laakiin waqtigan dambe hadda qof aan ogeyn unbaa murma laakiin daraasaadkiisa cilmiga qofka akhriya runtii ma murmi karo sida awgeed ayaa munadama sixa alcaalamiya WHO 1979 ayay baaxisiinteedu waxaa lagu daray inuu ka mid yahay 40 maado bay sheegeen oo qaadka laga helo waxaana aakhirkii la go'aamiyey inuu drugska ka mid yahay maandooriyayaashay ku dareen مؤتمر العالم الإسلامي لمكافحة المسكرات والمخدرات iyaguna waxay go'aamiyeen inuu ka mid yahay mukhadaraadka sharciyan xaaraamta ah fataawi ulama almuslimiin markaynu eegnana fataawi aad u tiro badan oo fogeynaysa ayaa ka soo baxday
duuduub ahaan wixii ay adilo sheegaan waxaan jeclay inaan mar wada sheego laakiin haddaan qaadka inaha ku koobo